halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa maalin Arbaca 3 bisha Agost saacaduna waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo. barnaamijka subaxnimo waxaad ku dhagaysan doontaan in ku dhow 10,000 oo qoys oo ka barakacay degmada Caato oo dhawaan dagaaladu ka dhaceen. dadkaas xaaladoodu waa sidee? wax la qiyaasi kara maaha. waxaan ka warqabnaa in goob kasta oo ceel ah waxa weeye dadka noloshoodii ay gaday in geedo hoostooda waxa weeye ay ku umraan 23 hooyo oo waxa weeye mad garanaysaa wixii ah oo goob caafimaad aan helin. dhinacyada ku dagaalamay Yemen oo isla ogolaaday xabad joojin. ismiyaal taariikhi ah oo la dhisay qarnigii tagay oo ku yaala deegaano ay ku jirto baargaal oo halis ugu jira inay tirtirmaan. Kansas gobolka Mareykanka ku yaala oo loo codeeyay afti laga gaariyo sidii go'aan laga gaari lahaa ilma soo ridista iyo wararka ciyaaraha. barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Cali Gelle, waxaa idin la socodsiinaya aniga Maxamed Sheekh Xasan. marka hore se ku soo dhawaada warka caalamka iyo Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe. mahadsanid Maxamed Shiil Xasan. afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa khudbad u jeedisay baarlamaanka Taiwan kadib markii ay magaalada Taipei ka degtay galinkii dambe ee Talaadada. waxa ay u sheegtay xildhibaanada in Taiwan ay tahay mid ka mid ah bulshooyinka ugu xornimada badan caalamka. wax yar ka hor inta aysan khudbadeeda bilaaban, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u yeeray safiirka Mareykanka u fadhiya Beijing Nicholas Burns si uu ugu muujiyo sida ay dowladda Shiinaha ugu careysan tahay Mareykanka maadaama ay Pelosi booqasho ku tagtay Taiwan. madaxa hay-adda dabagalka nuclearka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in barnaamijka nuclearka Iran uu sii hormarayo uuna sii xoogeysanayo ayna sii kordhayaan tiradiisa iyo hamiga laga qabo. wadahadallada ku saabsan dib u soo nooleynta heshiiskii nuclearka ee 2015 ayaa hakad ku jira maadaama ay jiraan arrimo ay ku kala aragti duwan yihiin Iran iyo Mareykanka. markabkii ugu horeeyay ee isagoo raashin wada ka sharaacda deked ay maamusho dowladda Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ayaa gaaray biyaha Turkiga. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay sidii loo sameyn lahaa jadwal caadi ah oo ay maraakiibtu ku shaqeeyaan. dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku boorisay inay ka taxadaraan dhibaatooyin ay suuragal tahay in lala beegsado dadka u dhashay Mareykanka kadib dilkii hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in dhimashada al-Zawahiri ay horseedi karto in taageerayaasha Al-Qaacida ay bartilmaameedsadaan xarumaha Mareykanka iyo ciidamadiisa. ugu dambeyntiina dalka New Zealand ayaa bilaabay qorshe 6 sano ah oo ku saabsan sidii qaran ahaan loola qabsan lahaa la tacaalidda saameynta ka dhalatay diirimaadka dunida ee sii kordhaya. istiraatiijiyadan ayaa horseedi karta in laga guuro qaar ka mid ah deegaanada u dhow xeebaha sababo la xiriira heerka badda ee kor u kacay. warkii caalamka waa naga intaas Shiil. وتاي aad buu u mahadsan yahay Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe oo inala socodsiinayay warkii caalamka. wadaan ku horeynay ku dhawaad 10,000 oo qoys ayaa ka soo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay degmada Caato ee gobolka Boqol, kuwaas oo badi ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada Godgod ee gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. dadkan dagaaladu soo barakaciyeen oo wax gargaar ah wali helin ayaa u baahan gargaar degdeg ah sida uu BBC-da u sheegay Maxamuud Cabdiqaadir gudoomiyihii hore ee degmada Caato. Ismaaciil Buurgaabo ayuu u waramay isagoo ku sugan deegaanadaas xadka u dhow ee gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. walaal dadku waxa weeye sida intayda muddo kooban ayaa waxaa qabsatay 2 dagaal oo kala dhacay waxa weeye Arbacadii iyo Jimcihii ka dambeysay. dagaaladaas waxaa kuwa aad u culus oo waxa weeye aan inabaan caadi ahayn. dagaalkii koowaad oo ahaa dagaalkii kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday waxa weeye degmada Caato ee xadka dowlad deegaanka waxa weeye ku taal
koonfur galbeed howlgaladoodana aadagood waxa weeye al-shabaab inay ugu gudbeen qaybo ka mida deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka afdheer iyadoo dagaalkii diiftiisii waxa weeye aysan weli shacabkii gurmud aysan helin marka laga reebo laba xildhibaan oo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ay soo gaarsiiyeen waxaan ku filayn hawshii iyo kuurgelistii iyadoo ay ku guda jiraan ayuu jamciyii iyagoo goobjoog ka ah haddana waxa weeye dagaalka ugu cuslaa sidaa loo socota jamciyii dhacay sidaa daraaddeed 10 kun oo qoys oo waxa weeye degmada Aato iyo deegaanada laga xukumo iyadoo marxalad adag ugu jiro ayay ka soo barakaceen magaran dadka ama dad xadka dhinaca Soomaaliya ka soo qaxayba mise dadkii ayaga ku dhow meelaha dagaalka uu ka dhacay deegaanka Soomaalida ayagana way barakaceen ismaaciil oo haddii aad la socoto degmada Aato waxay ku taallaa xadka waxaa ku jiro santar weyn oo waxa weeye degmada Gudgud laga xukumo sidaa daraaddeed maadaama xad ku taallo mujtamacuna ay wax kasta ay wadaagahayeen way la qabaan waxa weeye wixii degmada Aato ka dhacay waayahay dadkaasi xaggee hadda ku nool yihiin xaaladooda nololeed waa sidee wax la qiyaasi kara maaha waxaan ka warqabnaa in goob kasta oo ceel ah ay waxa weeye dadka noloshoodii ay beday inay geedo hoostooda waxa weeye ay ku umulaan 23 hooyo oo waxa weeye mad garanaysaa wixii ah oo goob caafimaad aan helin intii kaleeto oo yaraan 4 kun oo qoys inay gaareen santarada waxa weeye degmada Gudgud hoostaga iyo degmada Gudgudba halkaas oo maamulkii waxa weeye degmada Gudgud gobolka Afdheer iyo bulshadii deganeedba iyaga oo marxalad adag oo abaar ay ku jira colaadana ay waxa weeye la qabeen ay kula dala dhacayaan wax gargaar oo dadkaasi dhinacna ka soo gaaray inuu jira ismaaciilow waxaan aan ku cadeynayaa inaysan jirin wax gurmud dowladeed ah oo ilaa iyo hadda markii laga reebo xildhibaanada aan horey ugu soo sheegay oo soo gaaray labada dhinacba inaysan jirin iyo mid hay-adeedii mid samafal iyo mid waxa weeye bini'aadanimada dadka marka aad dhex martid la hadashay dadyowga hadda ceelashka biyaha iyo deegaanadan hoos imaanaya degmada Gudgud jooga misleeyihiin rajo dhow inay goobihii ay ka yimaadeen ku laabtaan ay qabaan والله walaalow arintaa waxa weeye mad garanaysaa waxay ku xiran tahay xaqiijinta iyo waxa weeye mad garanaysaa iyaga oo ay fursad kale oo waxa weeye ay danahoodii noloshoodii guryahoodii ugu noqdaan ay muujiso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda deegaanka iyo dalka Itoobiya oo iskaashanaya inay laga sifeeyo cadawga deegaanadii ay ka soo barakaceen taasoo ku xiran tahay dadkaasi sidee loo qaabilayaa dadkan soo barakacay kuwan soo qaxayaba ee gudaha deegaanka soo galay bulshada iyo sidee u qaabilayaan walaalow qaabilaada hidde dadku Soomaaliya waad ogtahay meel xun iskagama tagto meel kasta joogtana waxa weeye marka dib waxa weeye waa in meeshii joogto kaga xanuunsanaysa intii gacanteeda gaadhay waxa ay tari kartana laakiin waxa weeye laga qaawan isma qaadadii weeye marxalad adag oo abaara lagu jiray ma garato saa daraadeed dadku wixii ma garanaysaa dirnaxa waa meesheeda laakiin tabar ay isdhaamaan oo maanta cid kale nabadgelyo inay doontaan mooyaane aysan jirin baan anagu xogteeda iyo waxa weeye xaqiiqadeeda nagna وتاي كاسنا وحاوها محمود عبد القادر قدومي هوري دغمدا عاطو و رميي اسماعيل بورغابو هدبا dhageystayaasheena ayaa qaarkood waxa ay hadda facebooka ka soo dhiibanayaan ra'yigooda ku saabsan qodobkaasi faarax maxamed xirsi oo jooga gaalkacay waxa uu yiri runtii aad baan uga xumahay xaaladda nololeed ee la soo diristay dhowaan dadka ka soo barakacay deegaanada ay dagaalada ka dhaceen waxaan ugu baaqayaa yiri bulshada Soomaaliyeed inay saacidaan walaalahooda baahan Ramadaan Raamo ayaa isaguna waxa uu joogaa deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu si gaar ah u jooga degmada Doolwaado waxa uu leeyahay dadkan soo barakacay ee ku soo barakacay dagaaladaasi waxa haysta dhibaato aad u daran oo nafaqo daro iyo ay ku jirto dhibaato kale oo hoy la'aan waa in ay labada wadan ka warhayaan oo ay gurmad degdeg ah u sameeyaan ay soo gabagabay kuwaasna waxay ahaayeen dhageystayaasha dhinaca facebooka afkaartooda ka soo dhiibanayay anaada dhinaca dalkaasi Yemen dhinacyada ku dagaalamay uu dagaalku u dhaxeeyay dalka Yemen ayaa waxay isla ogolaadeen xabad joojin cusub oo 2 bilood iyadoo tii horena ay dhacayso arintan ayaa ku timid cadaadis caalami ah oo loo galay sidii loo gaari lahaa heshiis lagu dabaqo sidii deganaansho waara loogu gaari lahaa dalkaasi oo muddo 7 sano ay dagaal ka socdeen ergeyga gaarka ay qaramada midoobay ee Yemen ayaa si aad arintaas ugu dadaalayay waliba xabad joojintii 6 bilood ee ay
lasoo dhaafay labada dhinac ayaa aada ugu dhibaatooday hirgelinta hasiiska jira ee xabad joojinta waxaana sii kordhaysay kalsooni darada yemen ayaa dagaalku uu ka socday tan iyo 2014 markii xuutiyiintu ay dalka qabsadeen kuna qasbeen isbahaysiga dowladda sacuudiga hogaamiso in ay soo farageliyaan dalkaasi 2015 warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya xasan cali geelle maxamed jiil sida laga soo xigtay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan dalka yemen hans grenberg kordhinta muddada xabad joojinta waxay ka mid tahay ballanqaadka dhinacyada ay horey u saxiixeen si loo xoojiyo wadaxaajoedyada oo loo ogolaado ama loo gaaro heshiis xabad joojina oo ka ballaaran sida uu haatan yahay oo taasina ay tahay mid si dhaqsa ay tahay in lagu helo wararka ayaa sheegaya in ergeygani uu dhinacyada ku cadaadinayay 6 bilood oo xabad joojina oo hor leh oo taasina ay sahli lahayd in weliba wakhtiga loo sii dheerayo balse labada dhinac waxa ay ka cabanayeen hirgelinta heshiiska xabad joojinta ee haatan wakhtigiisa sii dhammaanayay iyo kalsooni darrada weyn ee dhinacyada ka dhex jirta ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan yemen grensburg ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda uu xoojin doono u kala dabqaadidda dhinacyada ay xabad joojintani khusayso si loo xaqiijiyo in wax lagu heshiiyey si wanaagsan loo dhaqangeliyo waxa uu sheegay in xabad joojintani oo la ballaariyo ay suurtagelin doonto hab lagu bixiyo mushaaraadka hay-adaha shaqaalaha dowladda furitaanka wadooyinka duulimaadyada ka imaanaya sanca oo la ballaariyo iyo in shidaal joogtaha la gaarsiiyo magaalada xudayda qaramada midoobey waxa ay sidoo kale dabada ka riixaysay xabad joojin joogto ah si ay uga suurto gasho in dib loo bilaabo wadahadalada islamarkaana loo gaaro xal siyaasadeed oo waara xasanow xabad joojintan muddada hadda loo kordhinayo yayihiin dadka iyo dowladaha gacanta ka geystay saraakiisha maraykanka iyo cumaan ayaa in badan waxa ay ka shaqaynayeen oo labada dhinacba ay culays ku saarayeen in xabad joojintani la sameeyo marka laga soo tago ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan dalkaasi yemen waxayna intooda badan doonayeen oo ay taageerayeen soo jeedinta grandburg kadib booqasho uu madaxweyne biden ku tagay sacuudiga bishii hore biden ayaa soo dhoweeyey muddo kordhinta haatan loo sameeyey xabad joojinta balse waxa uu bayaan ku sheegay in inkastoo ay tahay tallaabo muhiim ah oo lama huraan ah ayna badbaadinayso nolosha dadka reer yemen haddana kuma filna buu yidhi mustaqbalka fog arrintani waxa uu ugu baaqay dhinacyada isku haya colaadda yemen inay ka faa'iidaystaan fursaddan si ay si wax ku ool ah uga shaqeeyaan qorshaha qaramada midoobey si loo gaaro heshiis loo dhan yahay oo dhammaystiran oo ay ku jiraan tallaabooyin lagu wanaajinayo xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka shacabka bixinta mushaaraadka arrimahaasi oo gogol xaar u noqonay buu yidhi in la helo xal waara oo dadka reer yemenna ay hormuud ka noqdaan raadinta xalka colaadda dalkooda hareeyey ama dalkooda haraysay afhayeen u hadlay taliska dhexe ee maraykanka ee kormeeraya ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe ayaa isna soo dhoweeyey muddo kordhintaasi waxa uuna sheegay in ay sii wadi doonaan gargaarka malaayiinta qof ee reer yemen ee tabaalaysan afhayeenka golaha ammaanka ee qaranka maraykanka john kibley ayaa isna ka falceliyey horumarka laga gaaray muddo kordhinta xabad joojinta dalka yemen wuxuuna arrintaasi kaga hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo madaxweynuhu wuxuu soo dhowanayaa ku dhawaaqista waqti kordhinta xabad joojinta laga gaaray khilaafka yemen xabad joojintun waxay ahayd muhiimadda waxyaabihii looga hadlay xilligii booqashada madaxweynaha ee sacuudiga halkaas oo uu kula kulmay boqorka iyo amiirka dhaxalka iska leh iyo weliba hogaamiyaasha gobolka waxaan u mahad celinayaa hogaanka sacuudiga sidii ay isku soo dibrideen xabad joojintan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa suldaanka iyo hogaamiyaasha cumaan oo kaalin weyn ka qaatay arrintan xabad joojinta haatan 5 bilood ay socotaa waxayna keentay deganaan ka dhacda dalka yemen waxayna badbaadisay nolosha kumanaan waxayna nabad la taaban karo u keentay dad yemeniyiin ah oo aan la qiyaasi karin waa muddo 5 bilooda ma badna laakiin marka aad ka hadlayso 7 sano oo dagaal ah iyo nolosha kumanaan yemeniyiin ah waa wax aan la qiyaasi karin haddana waxaan haysanaa fursad aan xabad joojinta 2 bilood oo kale ku kordhin karno
maxamed shiil kaasi wuxuu ahaa mas-uul ka tirsan dowladda maraykanka oo ka falcelinayay arintaasi muddo kordhinta loo sameeyey colaadda dalka yemen ayidhaahde xabadjoojinta colaadda dalka yemen laga gaaray colaadda u dhexeysa fallaagada xuutiyiinta oo ay taageerto iiraan iyo isbaysiga uu sacuudiga hogaamiyey ayaa bilowday sanadkii 2014 waxaana colaadan ku dhintay 100,000 oo qof oo reer yemen ah xukuumadda riyaad waxay isku dayeysay inay ka baxdo dagaalkan oo kharashka badan kaga baxay kaasi oo xudun dhaxaad u ahaa xiisada kala dhaxeysay maamulka madaxweyne Biden ee dalka Mareykanka kaasi oo joojiyay taageeradii uu siin jiray howlgalladii isbahaysigaasi uu sacuudiga hogaamiyey colaadan ayaa si weyn loogu arkaa inay tahay loolan u dhaxeeya wadamada sacuudiga iyo Iiraan oo ku hardamaya gobolka bariga dhexe dhinacyada dagaalamayna waxaa midba midka kale ku eedeynayay jabinta xabad joojintii horey u dhaqan gashay xukuumadda sacuudiga taageero ee Yemen ayaa xuutiyiinta ku eedeynaysay inay dib u furin wadooyinkii muhiimka ah ee magaalada Taiz ee lagu muransan yahay halka kooxda xuutiyiintuna ay ku eedeynayeen isbahaysigaasi sacuudiga hogaamiyo inayan keenin tiradii lagu heshiiyey ee maraakiibta shidaalka sida ee dekada Xudayda iyo duulimaadyo ka imaanaya caasimadda Sanca oo labaduba ay gacanta ku hayaan kooxdaasi fallaagada ah ee xuutiyiinta dadka reer Sanca ayaa haatan rajo ka muujinaya xabad joojintan muddada loo kordhiyey الشعب اليمني يريد من الهدنة dadka yemen waxay qaateen xabad joojin si ay isaga qaadaan mugdigii ku wareegsanaa waa in xaydaabka la jabiyaa waa in mushaarooyinka la bixiyaa nabadda waa in ay u soo laabataa qof kasta oo yemen u dhashay الهدنة هذه إذا لم تتوافق معها أو تترافق معها haddii xabad joojinta aan la socon fal looga dhamaynayo sida qaadista kala qoqobnaanta isgudubka ama isdhexgalka xorriyadda safarka iyo bixinta mushaarooyinka waxay ila tahay xabad joojinta kuwii hore waxba ma dhaami doonto laakiin waxay noqon doontaa kuwa dagaalamaya oo nasta waxay ila tahay in xabad joojinta albaabka u furi doonto wadahadal toos ah oo lagu gaaro nabad waarta oo soo celisa nabadii iyo ammaankii تجديد الهدنة يعني هدنة تكون مفتاح للسلام kordhinta waqtiga xabad joojinta waxay furo u noqon doontaa nabadda waxay horsoodi doontaa mushaarooyinka oo la bixiyo bangiga dhexe oo howlgala iyo lacagtii qaranka oo shaqaysa dadku way dhibaatoodeen weliba si aada xabad joojin kuwii hore la mid ah waa macno daro sababtoo ah dagaal iyo nabad midna maaha إنها هدنة غير مجدية لأن لا حرب ولا سلام kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah shacabka degan magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen oo rajo ka muujinayay kordhinta xabad joojinta haatan la kordhiyey ee muddada lagu daray maxamed shiil tan iyo sanadkii 2005 markii isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyey uu farageliyey xuutiyiinta iyo dalka ay qabsadeen ee dalka Yemen ayaa dhaqaalaha dalkaasi adeegyada asaasiga ahay ee dalkaasi Yemen guud ahaanba waa ay burbureen arintaasi oo ka dhigan in 80% dadweynaha dalkaasi oo ku dhawaad 30 milyan ah haatan u baahdaan gargaar bani aadanimo qiimaha cunada ee si sara kacaya ayaa waxa uu halis gelinaya in dad badan ay gaajo u dhintaan amaba ay dhibaato la kulmaan iyadoo dhaqaalahana yari ka jirta caalamkana ay ku qasabtay in qaramada midoobay ay dhinto cunadii ay gaarsiin jirtay dadka tabaalaysan ee ku sugan guud ahaan dalkaasi Yemen waa tahay aad buu u mahadsan yahay xasan cali gele oo warbixintaasi ku saabsanayd xabad joojinta cusub ee dalkaasi Yemen ayuu ahaa halka aad naga dhegeysanaysanna waa BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba dalka Soomaaliya waxa inay tirtirmaan halis ugu jira goobo badan oo taariikhi ah kuwaas oo ay ka mid yihiin dhismayaal badankooda la hirgeliyey qarniyadii 18aad ilaa iyo qarnigii 19aad haddaba wariye maxamed xasan dhalo ayaa dhowaan tagay baargaal oo ku taala cirifka bari ee Soomaaliya waxaana uu inoo soo diyaariyey warbixintan oo ku saabsan dhisme boqorkii deegaankaasi halkaa ka dhisay bilowgii qarnigii tagay haddana halis ugu jira inuu u raad guro waxaa sanqaraysa qaslataal albaabka hore ee daar taas oo ka mid ah agabkii u adeegsan jiray boqor cismaan oo gurigani hoy u ahaa 100 sano ka hor waa dhisme bilowga qarnigii hore laga hirgeliyey baargaal oo ku taal gobolka bari waxaana daartani saaran tahay xaaxiga badda hindiya ee magaaladani kulaasho cabdiraxmaan cayna muuse gudoomiyaha baargaal ayaa ka sheekaynaya sooyaalka gurigan
gurigan waa guri qurux badan daarta cad ayaa baa horeeto la oran jiray inta boqorku joogay iyo sanadihii xataa uu ka talinayay boqorku Allah yarxamo wuxuu isugu jiray gurigani dhowr qaybood qayb maamulku uu leeyahay oo maaragtay shirarka qayb bangiga qayb xabsi ah qayb foornooyina qayb la seexdo qayb ciidanku degan yahay oo maxaan ku yiraahdaa waardiyuhu dego gurigan waxaa taariikhdu kulay inta la qoray ay sheegaysaa 1910 ilaa 1905 in la dhisay gurigan injineeradii dhisay sida aragtaan ma ahayn Soomaali hindi bay u badnaayeen gurigan wuxuu ahaa guri deegaanada tan ilaa iyo inta la hubo ilaa Boosaaso ilaa iyo Caloole inta ka dhaxaysa guryaha ugu qurux badan uguna casrisan sanadkaas kolka kor laga eego waa dhisme kooban wuxuuna ku fadhiyaa ilaa 40 tallaabo oo isku weer laakiin gidaarka daartan waxaa lagu dhisay dhagax dhinac iyadoo aan wali la hubin dareeraha lagu milay tarshada gurigan la saaray dhanka sare ee guriga ayaa lagu shubay jirrada dhibic leh halkan waa meesha lagu furi jiray meelaha qaar gurigan waxaa gidaarka la dhexgeliyay qaslado la sheegay in boqorku ku ilaalin jiray ashyaada muhiimka ah ee dahabka ugu midnaa qayb baa dhooba ah qayb dhagax yar yar ah buu isugu jiraa qayb shubah buu isugu jiraa qaybta hadda bangiga oo kaleeto qaybta ahayd isma dhaqaajin waa sideedii khasnadihii markaasi lacagtu way yareyd laakiin bana dahabka iyo boqorku dhigi jiray oo maaragtay dawladdu ay lahayd boqorku wuxuu ahaa maamul goboleed oo kaleeto ma ahayn shakhsi meesha kaligiisa iska taagan sida hadda Puntland oo kaleeto ummadii markaas uu u shaqeynayay boqorku iyo wasiiradiisii iyo maxaan ku yiraahdaa safiiradiisii iyo ayaa gurigan ugu talagalay inay ummadda loogu shaqeeyo xilligii gumaystuhu dalka ku baahay ayaa boqorku ka tegay deegaankan gurigiina waxa uu galay gacan kale kolkii gumaystaha Talyaanigu uu dalka ka baxayna dhowr qaab ayaa looga faa'iideystay daartan bootaan Muuse Maxamed ayaa BBC-ga uga warramay arrimo kala duwan oo daartan loo adeegsan jiray guriga daarta boqor Ismaan ee qadiimiga ah ee beerkal ku taalo waxa looga faa'iideystay xilliga dakhiliga meel wax lagu barto ayaa laga dhigay wax ka lagu baran jiray waxaan arkay odayaal hadda da' oo da'da 80-yada iyo meelaha ku jira oo igu sheekiyay inay wax ku barteen oo meesha wax lagu dhigi jiray sidoo kale dawladihii Soomaaliya soo maray kuwa rayidka ahaa iyo team military ahayd intuba waxay meesha ka dhigeen saldhig ciidan oo booliiska ayaa deganaa isgaarsiinta ayaa walay taarki waxa loo oran jiray booliisku marka isticmaali jiray online oo soo gaaray anigu iyadoo ciidanka booliisku degan yahay taarku yaal oo birleeri ka taagan tahay dawladina saasi ugu dhacday kadib markii Puntland la asaasay haddana dib saldhig ahaan baa loogu isticmaalay in xilligan idima degna waxaana muuqda burbur soo gaaray mana helin dayactir haddii ay midnayd laakiin daargaal magaalada uu ku yaal gurigan waxa uu yahay aasaar taariikhi ah sida bootaan ka sheekaynayo wuxuu tusinayaa calaamadu yahay taariikh dheer oo ay magaaladu leedahay oo tusinaysa inay magaaladani ka duwaneed magaalooyinkii gobolka ku oolaa xaruntii majeerteen iyo inay heeday ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa ilbaxnimada ay dheerayd magaalooyinka kaleeto ee guryo noocaan oo kaleeto xilliyadaas laga dhisay xiriirka ay leedahay dawladaha ama dalalka dibadda taariikhda ay leedahay magaaladu ayaa laga dhalansanayaa in xilli hore ahayd magaaladu xarun ahayd caasimada ilbax ay ahaayeen dadkii markaa xiga joogay xiriir nima leh ganacsi iyo maaragtay dibadda leh gudoomiyaha daargaal waxa uu sheegay in ay ka tafdheer tahay dayactirka gurigan waxaana uu door bidi lahaa in la siiyo gacan waxaan rabnaa insha allahu boqorrada maanta inoo jooga boqorburhaan oo kaleeto iyo dawladda dhexe inay ka qayb qaataan gurigan oo ah guri qiimo weyn noogu fadhiya mar waa guri ummadeed mar waa guri maamul mar waa guri taariikhi inoo ah mar waa guri oo maaragtay mas'uuliyiinteena horeeto ka tagi jiray marka waxaan rabnaa gurigeena sidiisi ka soo dhigno oo soo celino waana wax dawladda hoose ka xoog weyn oo hadda anagu maaragtay qayb waa ka shaqayn karaa laakiin ma wada dayactiri karno Soomaaliya sida wadada dhismahan hayo waxaa meesha ka baxay dhismayaal iyo aasaar badan oo taariikhiyan lamana hubo tan iyo kuwa la mid ah halka ay ku damaanayaan Maxamed Xasan Dhalo BBC Boosaaso waa tahay aad buu u mahadsan yahay Maxamed Xasan Dhalo dhinaca kale dalkaasi Mareykanka codbixiyaasha gobolka qunyar socodka ee Kansas ayaa u cadeeyay in sideeda ay ahaato xuquuq ilmo suuradista doorashadii ugu horeysay oo arrintan waxay noqotay qadiyad aad la isugu hayay tan iyo markii maxkamadda ay diiday guul muhiim ah oo la xiriirta sidii dhinac loogu ridi lahaa doodaas ayay reer Kansas waxay diideen isbeddel lagu sameeyo taas oo ka bedeli lahayd hanaanka dastuurka uma damaanad qaadayo arrintan waxayna keeni kartay sharci adag ama in la mamnuuco aftudu waxay daba socotay go'aan ka soo baxay maxkamadda sare oo horseeday mamnuucidda ilmo soo ridista meelo badan oo Mareykanka ah
kansas ayaa tii ugu horreysay ee tixgelisa wax ka beddelka dastuurka gobolka. tara mckelv oo ka tirsan b b c da ayaa warbixintan ka soo dirtay leewood oo ka tirsan kansas. faadimo abukar ayaa inoo haysa. rachel mary stout oo ah qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ayaa taagan bannaanka xarun ilmaha la isaga soo rido oo u dhow meel maqaayad ah. waxaa hawada qabsaday carafta ka soo baxaysa baradho la shiilayo. saakay noolaha keliya ee halkan jooga marka laga reebo rachel iyo dad kale oo dhowr ah waa 2 qooley oo nooca dalka Canada laga hela ah. balse rachel waxay haysataa bastoolad 9 milimitir ah oo xabadka ay ku haysato. waxay sheegtay in sababtu ay tahay in loo soo diro hanjabaado dil ah. marka ay kor u qaado boorka ay ku xirdan yihiin erayo ay taageero ugu muujinayso ilmeyska soo ridida, waxay rajaynaysaa in gobolka kansas uu ka codayn doono wax ka beddelka dastuurka una taageeri doono xaqa haweenka ee ilmeyska soo xaqida. waxaanu joognaa Overland Park ee Kansas oo ah magaalo yar oo ka tirsan magaalada Kansas. tani waxay ka mid tahay 3 xarumo oo ilmaha la isaga soo rido oo aad isugu dhow. Richard Kiba waa muxaafid haysta diinta Kirishtaanka, wuxuuna rajaynayaa in la ansixin doono wax ka beddelka dastuurka islamarkaana albaabada loo laabi doono xarumaha ilmaha la isaga soo xaqo. balse halkani waa meesha ay ku soo hirtaan dadka ka kala imaanaya 4 amaba 5 gobol si ay dhalaankooda aan weli dhalan ugu dilaan. balse inkastoo aqlabiyadda badan aan ku leenahay aqalka sanadka iyo barasaabka Kansas, weli waxaynu nahay caasimadda dilka ee adduunka. Jenna Profeski oo ah xeerlaaliye iyo wiilkeeda oo 3 jirka ah La Corson ayaa albaab walba garaacaya si ay ugu dhiirigeliyaan dadka in ay codeeyaan. qiyaastii dadka codeynaya xilligan doorashadana waa 35%. xaafadda Jenna waxaa ku badan koox abaabulan oo lagu magacaabo xorriyadda dastuurka ee Kansas, waxayna isku dayayaan inay ilaaliyaan xaqa dumarka ee ilmeyska soo ridida. waxa ay heleen in ka badan 70 milyan oo dollar oo deeq ah. kooxda mucaaradka ku ah waxa lagu magacaabaa qiime labadaba. ereyga labadaba waxay ula jeedaan hooyada iyo dhallaanka, waxaana heleen in ka badan 6 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo inta ugu badan ay uga timid kaniisadda Kaatooliga ah, sida ay qabto Mackenzie Hadix oo afhayeen u ah ururka waa dagaal aad u adag. horaantii bishan waxaa jirtay kaniisad si joogto ah ula tacaasha arrintan. mucaaradada aan aragnay ma aha mid weligeena soo martay. kaniisadaha si ku talagal ah ayaa loo curyaamiyey, balse taasi waxay uun dhiirigelinaysaa in dad badan ay haa u codeeyaan sababtoo ah way arkaan mucaaradnimada. su-aasha qiyamka iyo waxa dhabta ah ee uu yahay qiyamka Kansas ayaa udubdhexaad u ah dooda. waa tijaabadii ugu horeysay ee lagu ogaanayo sida ay dadka caadiga u arkaan ilmeyska soo ridida. tani waa go-aankii maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka. mahadsanid faadimo. haatana ciyaaraha. Rio Fernandes ayaa aaminsan in Manchester City ay ku guuleysan karto Premier League ciyaaraha xilligan ee cusub, iyadoo uu sheegay in kooxda kaliya ee soo laban karta ay tahay Liverpool. waxa uu sheegay in labadaas kooxood ay yihiin kooxaha ugu farsamada wanaagsan oo xilligan ay noqon karaan labada kooxood ee Premier League loo saadaalin karo in ay ku guuleystaan. waxaana uu sheegay in aanay jirin koox kale oo markaas loo tirin karo in ay soo saddexayn karto kooxahaasi. waxaana uu ninkaasi aad u bixiyey fafaale ku tilmaamay labada kooxood inay yihiin laba kooxood oo tartankan iminka u taagan. intaas waxaa inooga dhan barnaamijkeena subaxnimo.